shirka maanta waxa lagu xurmeeyay wasaaradda maaliyadda iyo arrimaheeda saddex ajenda item baa jiray ama saddex qodob ayaa laga hadlayay ka ugu horeeya wuxuu ahaa inaan ka hadalno shirkii ballaadhnaa ee dawladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay ku shireen gaar ahaanna IMF-ta ama sanduuqa lacagta ay ku shireen Addis Ababa dhawaanta la soo gabagabeeyay kaas ayay ahayd inaan briefing ka siino ama war ka siino cabinetka taas ayay ahayd waxaan uga waranay waxa weeye sida ay wax u dhaceen oo la isugu wada yimi runtii annaga iyo qolada hay'adda lacagta iyo banka adduunka iyo EU-da ama kulanka Yurub ay isku yimaadeen oo laga wada hadlay Soomaaliya halka ay marayso inagoo ku geedi socodka ku jira in deynta la naga cafiyo dhawaan hadii la yiraahdo marka wixii halka ka soo fulay ayay ahayd inaan uga warano cabinetka Golaha Wasiirada taa waan soo dhammaystiray waxa ku xigay taa marka miisaaniyadii ku celiska ahayd oo caadatan inay dhacdo ay tahay sanadka dhexdiisa oo naga baaqatay oo naga habsaantay waxoogaa oo iyadana halkan aan keenay ku celiskii waxaan ka waranay wixii ku celiska sababay iyo inay qaanuuni tahay in lagu soo celiyo ayagana markii la falanqeeyay la isla eegay waa la ansixiyay taa waxaa noogu xigay marka xisaab xidhkii sanadkiina dhaafay 2018 oo isagana aan idhi xisaabtiiba soo xidhaya arrimihii wixii looga baahnaana meesha waa ay ku yaaleen si fiican baa loo falanqeeyay markii la falanqeeyay waxa la isla gartay in iyagana la ansixiyo labadaasi waxay labaduba tegi doonaan marka aqalka muxuu ahaa golaha shacabka dhawaan hadii la yiraahdo laga bilaabo berri arrintaas ayaan galeynaa waxay noqonayaan marka in hore loo ansixiyo ay noqon doonaan si loo hirgeliyo waxyaalaha halka ka soo baxay waxana weeyaan waxyaalaha IMF-tu ama hay'adda lacagtu ay nooga baahan yihiin in hore loo dardargeliyo waxyaalo badanna ra'iisul wasaaruhu ka hadlay oo kale oo ku saabsan deyn cafiska iyo sidii looga wada qayb gali lahaa inay arrintaasi inaga dhameystiranto oo aynaan marnaba aynaan dib uga dhicin waxyaalaha loo baahan yahay waxa la isku raacay marka waxa weeyaan maanta marka laga bilaabo ilaa bisha aakhirkeeda 3 bilood baa inoo haray 3 bilood ama 4 bilood waxa loo baahan yahay in guntiga dhisha la iskaga dhigo oo arrinta la dardargeliyo ayaa halkan la isku wada raacay wasaaradda maaliyadda waxa la xil saaray inay hadba waxay uga baahan yihiin muxuu golaha ay la soo socodsiiyaan miisaaniyadda waxa horta miisaaniyadda in dib u eegid lagu sameeyo waa sharciga faraya hadii loo baahdo in dib u eegid lagu sameeyo waxana keeni kara waxa weeye in dakhligu kordhay ama dakhliga gudaha iyo ka kale la isku daray wax isba bedeleen waxa laga yaabaa lacag ka filaysay dibadda inay iman weydo haday iman weydo ilaa lacag walba kharash baa la socday waa in marka dib loogu noqonayso waxa laga yaabaa dakhliga aad filaysay inuu iman waayo oo dabeetana aad isku jaangoyso dakhliga go'ay iyo muxuu ahaa iyo kharashkeedii isku jaangoyso marka waxaas horta sababtu ay tahay loogu tala galay sanadka dhexdiisa in la eego annaga waxyaalaha ugu waaweyn waxa weeye dakhliga uu kordhay wuxuu ka kordhay 290 dakhliga guduhu dadka laga ururiyay 290 ilaa 220 ayuu noqday marka waxaan nagu soo kordhay kharashyo kale kharashada ay ugu badan yihiin muxuu ahaa qaybta hawada oo kharash cusub yimid leena hawadii baan la soo wareegnay ayaga laftooda lacag baa ka timid marka lacagtii hawadii la isku jaangoyo budgetka la geliyay ay noqotay waxa kale oo jira ciidamadii gaar ahaan ciidamada booliska oo meelo badan markii la soo diiwaan geliyay faraa laga soo qaaday number badan ka soo baxay marka kharashkoodii kordhay ayaa iyaguna yimi waxa kale oo yimi in loo baahday in safaaradaha ay dibadda ku leenay qaarkood la dayactiro oo aad iyo aad dhibaato uga muuqato in meelaha qaad safaarada laga iibsado oo lacagaha meelaha inaga soo galaya inta mar cunaha la isqabto la iibiyo Washington baa kamida meelaha la doonayay wax laga iibiyo South Africa ayaa la doonayay laga qayb galo dadka Soomaaliyeed halka degan oo damacsanay inay naga caawiyaan tan agteena Nairobi baa kamida marka safaarada noocaas oo kale inaan in raxmad la ku eegno oo dalku dhismihiisa ka qayb qaataan ayaa iyaguna nagu kalifay markaan yaa maganu kalifeen dib loogu noqdo markaa